kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walbo dunida ka joogtid kusoo dhawow musalsalka qof oo lansaday canshaqa xalqadiisii 171 ayaan falanqeynaynaa. xalqadu waxay ka bilaabanaysaa saay iyo usha mooshi oo tuuladii kusoo noqonayaan. sidaan wada ognahay xalqadii hore saay markay caddaysay dambiga iyo warqadii beenta ahayd finaayig oo ah ninkii xafiiska joogay warqada bedelay wax walba markay markaasi firad u fududeysay waa tii miriqdeedii la waayay. firadna markuu wax walba ogaaday wuxuu raaligareeyay bulkid iyo diifyaani kadibna guriguu soo aaday. xalqadii hore muhiimkeeda intaas ayuu ahaa. haddaba xalqadani waxay ka bilaabanaysaa saay oo markaan go-aansatay inay tuuladii ku noqoto. tuuladii markay kusoo noqoto dadkii ayay soo dhaweynayaan, aad bayno markaasi la yaabayaan inay saay soo laabashadeeda ayagoo waxba su-aalin baa muuqaalka xiga waxaana la tusayaa firad oo guriga imaaday. markuu guriga imaaday kadib baaqi ayaa su-aaleyso, waxay leedahay keligaa miyaa timid? bafani iidana way su-aaleysaa, waxay leedahay aawa diifyaani ma soo wadin miyaa? yacni waxayba filayeen inuu firad baxo uu markaasi ninka bolkid ahaa xiro, diifyaanina soo wado, saayina sidaas ay ku baxday. ninnan oo ah aabiisna wuxuu weydiinayaa ninkii bolkid ahay ma aadan xirin miyaa? firad weli wuu aamusan yahay, intaas ay su-aalo weydiinayaan. markaas bay baaqi hadlaysaa, waxay leedahay waxaa macquul ah saay inay dhib kala samaysay. dhab ahaantii saay mar walba waxay isku daydaan inay markaasi barnaamij cusub abaabusho kadibna firad sharafkiisii dhulka la gasho. dhammaantood waxay markaasi malahooda u siinayaan in saay ay joogto guriga bolkid, halkaasna ay hadeer joogto, sidaasoo malahooda siinayaan. baaqi foodadeeda iyo dhibkeeda sii wadaa, waxay leedahay saay mar walba waxay jeceshahay inay firad dhulka sharafkiisii dhulka la gasho. waxaa macquul ah hadeer mar kaleeta inay firad khiyaantay, way firad uu aamusan yahay, magaca saayina uu dhibsanayaan. firadoo magaca saay aan kugu hadal qaadin miyaad dhibsanaysaa ma sidaas ayaad la aamusan tahay? hadallo noocaas ayay ku durduraysaa ilaa markii dambe intuu ka caroodo uu dhaha jooji, intaas ku jooji saay aad wax ka sheegaysid, isagoo weliba kor u qaylinayo. dhinaca kaleeta dadkii deegaanka mid ka mid a ayaa saay su-aalayo, wuxuu leeyahay muxuu firad kuu soo raaci waayey uu halkan u imaan waayey? saay waxay leedahay firad iyo qoyskiisaba waan kasoo tagay. usha mooshi way oynaysaa, waxay leedahay firad wuxuu burburiyey xiriirkii isagii saay ka dhexeeyey, guriguu kasoo saaray, wax walbay u sheegaysaa. waxay leedahay sidaasay wax u dhaceen. dadkii deegaanka waxay dhahayeen taasi suurtagal ma ahan, firad waa inuu saay aqbalaa, sidoo kaleetana halkan uu imaadaa, uu ka kaxeeyaa, sababtoo saay isaga ayaa mas-uuliyadeeda qaaday, waxbarasho ahaan iyo waliba mas-uuliyadda guud ahaan nafteeda, wuuna guursaday. inuu gabadha hadeer wada cidlaha kusoo daayo taasi wax la aqbali kara ma ahan. dadkii deegaanka sidaas ayay dhahayaan. usha mooshina waxay u sheegaysaa in firad uu guriga kasoo saaray saay, dhibka dhacay iyo weliba sharaxaad dheer. markaas dadkii deegaanka waxay dhahayaan hadeer waxbarashadaadii iyo rayadaadii maxaa u dambeynayo? saay waxay leedahay nagbuur waan ku laabanayaa, waxbarashadeydana waan wadanayaa, cid aan waxbarashadii dartood u joojinay ma lahan. haddii aan firad kala tagnay, qoyskiisana aan kasoo tagay, taasi macneeda ma ahan inaan waxbarashadii joojinayo. nagbuur waan ku laabanayaa, waxbarashadeydana waan wadayaa, ra'yida aabahiina waan rumayn doonaa ayay dhehaysaa saay. markaas waxaa hadlaysa usha mooshi, waxay leedahay waxbarashada qarash uma haysid, sidoo kaleetana hotel lacag aan ku degno waan weynay, sidaas ayaan tuulada ugu soo laabanay. haddii jaamacadda ay degi lahayd oo saay jaamacadda qol laga siin lahaana looma ogolo gabdhaha ama haweenka la guursaday in jaamacadda ay degaan, taasi waa ka mamnuuc sharci ahaan. haddaba saay way murugaysan tahay. kadib baa usha mooshi fikrad u keenaysaa saay, waxay leedahay saay waa inaad baxdaa oo guriga bolkid aad tagtaa, halkaas deganaaw inta waxbarashadaada ay ka dhammaanayso. meeshaas yacni nagbuur ay igana joogaan ileenay gurigooda u hoyo, maalinkiina waxbarashadaada aad. sidaas ay fikradaas ayay u keentay, laakiin saay way diidaysaa. waxay leedahay ma doonay inaan axsaankii u sameeyey inaan aniga markaasi abaal gud aan kaga qaato arrinkaasi. waan ogahay inaan caawiyey,
dhib kale inaan usoo jiido ma rabi, culays inaan ku noqdo ma rabo, sidoo kaleetana waxaa macquul ah aniga darteeda inay dhib ula kulmaan. Ma doonayo marka dad aan aniga axsaan u sameyn inaan garab weydiisto, taasi suurtagal ma ahan ayay dhehaysaa gabadhiisa ay ahayd. Hawsha motion way murugaysan tahay, waxay u ducaynaysaa Saayi in markaasi irid u furanto. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa ninkii Firad ahay oo qoyskiisii qabsanayo. Ninkii Firad ahay ayaa Baaqi ku qaylinayo, waa tii ay tiri Saayi ayaa wax xun samaysay, waxaa macquula inay Firad khiyaantay, sidoo kaleetana uu Firad sidaas u niyad jabsan yahay, magaceeda xitaa uu dhibsanayo una aamusan yahay. waa tii ay tiri. Isagana wuxuu dhahay aamus, mar dambe Saayi waxba kama sheegi kartid ayuu dhahay. Saayi ma qaldana, dhammaanteen ayaa qaldan, Saayina wax xun kama sheegi kartid. Baaqi waxay dhahaysaa bal inoo sheeg dhibka cusub ee Saayi la kulantay ood sidan dhan ula qaylisay. Haddaba Bafani ayaa iyadana hadlayso. Firad wuxuu dhahayaa dhammaanteen waan qaldannahay, laakiin Saayi ma qaldano, iyada ayaa naga saxsaneyd, qalad ayaan ka galnay dhammaanteen. Bafani way hadlaysaa, waxay leedahay hadalkaada micno u yeel, inoo sharax maxaad ka wadaa. Wuxuu dhahayaa waxaan baaritaan ku sameeyey warqadii, dukumeentiyadii iyo warqadihii saxda asalka ahaa ayaan helay. Waxaana ka helay Bulkid xaaskiisa inay tahay Difiani, aysan ahayn Sankita Deshpande. Magaca Sankita Deshpandena dad anaga naga mid ah ayaa alifeen. Bulkid xaaskiisa rasmiga markii hore waxay ahayd Difiani, hadeerna waa Difiani. Sidaa awgeed aniga hadeer ma awoodo inaan xiro ninka Bulkid ah ee sidaas ogaada. Markuu sidaas dhaha kadib waxaa naxaysa Bafani weliba aad iyo aad. Waxay niyadda ka dhahaysaa talow Firad runtii miyuu ogaaday oo xaqiiqada rasmiga miyuu helay. Intaas kadib waxaa hadlaysa Ashwani, waxay leedahay aniga horey ayaan u ogaa in markaasi Saayi ee saxsaneed, mar walba ayay Saayi niyad ku celcelin jirtay oo ay dhihi jirtay aniga run ayaan sheegayaa, Bulkid xaaskiisa waa Difiani, Sankita Deshpande wax la dhahay ma jiraan. Saayi mar walba sidaas ayay dhihi jirtay, laakiin anaga dhammaanteen cid aamintay ma lahan. Guriga ayaan ka saarnay, si xun ayaan ula dhaqannay. Firad wuxuu dhahayaa dhammaanteen waan qaldannahay, Saayi ayaa naga saxsan. Muhiid ayaa isagana markiisii furka tuuraya, wuxuu dhahayaa Saayi si xun ayaa loola dhaqmay, guriganna xushmad kama haysan helin. maxay qalad ah oo samaysay? Laba qof isjecel oo horey isku guursadeen oo israbeen ay isku keentay, misana ay caawisay. Bafani waxay dhahaysaa maxaa caddeyn u ah in markaasi Bulkid uu horey u qabay Difiani uusan naag kaleeta guursanin. Waxaa hadlaysa Ashwani, waxay leedahay maxay tahay caddeynta kale aad rabtid? Wax walba way cad yihiin, Saayi ayaaba isku guurisay, caddeyn kale miyaad u baahan tahay haddeeba labadoodii isguursadeen? Markii horena iyaga ayaa afka ka sheegeen inay hore isku guursadeen, mar labaadna waxaa isku guurisay oo caawisay waa Saayi. Caddeyn kale miyaad u baahan tahay leedahay? Ninkii Muhiid ahay hadalkiisii ayuu sii wataa. Wuxuu leeyahay hadeer Saayi waji noocay ayaan siinaa, si xun ayaan ula dhaqannay, anagoo gabadhan soo guursanay gurigana nala joogtay ayay dhammaanteen naga saxsanaatay. Ma ahan hal jeer, mana ahan laba jeer. Inta jeer ee Saayi naga saxsanaatay qoyskan inay qaldan yihiin ay caddaysay. Bal fiiri Saayi sidan u galnay, laba qof isjecel ayay isku keentay, misana ay doonaysa inay midaysiiso, laakiinse waxaan ugu abal gudnay inaan iyada guriga ka saarno, si xushmad darana aan ooda markaasi ula dhaqanno. Xaaskiisii Karishma ayaa joojinayso, waxay leedahay intaan kadib aamus bal waad qayladisay, maxay tahay waxaad ku hadlaysid, tartiib u hadal bay dhahaysaa. Intaasi kadib waxaa dhacayso inay Baaqi hadasho, waxay leedahay anigu ma aaminsani marnaba, waxaa macquul ah Bulkid inuu waxan oo dhan soo qorsheeyey, soo suurtagal ma ahan Bulkid inuu horey u guursaday gabar kale oo lagu magacaabo Difiani. Difianideena iyo midaasna inay isku magac yihiin oo magacaasna uu Firad soo arkay, soo suurtagal ma ahan midaasi. Firadna midaasi lagu indhasiray, Saayi iyadana intaas lagu indhasiray oo waxan oo dhanna soo qorsheeyey Bulkid. Sababtoo ah waxay tahay maxuu intaanoo sano u maqnaa Bulkid? Maxay tahay sababtoo hadeer usoo laabtay oo u dhahay Difiani aniga hadda koor guursaday, hadeerna waan u baahanahay xaaskayga, mar labaadna sababta u guursaday maxay tahay? Waxaasoo dhan bal hal isweydiiyo. Firad ay barnaamij cusub inay ka dhaadhacsiiso ay isku dayaysaa Baaqi. waxaa markaasi caawinaysa Baaqi. Bafani waxay leedahay Baaqi waa runteed,
waxaan oo dhan waa qorshe uu wato Bulkid. Ha ku sirmin wiilkaygiiyow. Firaad wuxuu leeyahay intan kadib iga joojiya isagoo weliba qaylinaya. Wuxuu dhahayaa wax walba way cad yihiin. Bulkid ma xiri karo, wuu saxsan yahay. Diifyaani iyo Bulkid way isjeclaayeen. Sidoo kaleetana markii horena way isgursadeen, mar labaadna way isgursan rabeen. Laakiin waxaan oo dhan qofka ka dambeeyay waan soo helay. Warqadda beenta ah qofka sameeyay waan soo helay. Magaca Sangeeta Deshpande qofka keena waan soo helay. Waxaasoo dhan waan soo helay. Qof anaga naga mid ah ayaa khiyaanada sameeyay. Waxaan ugu talagalay in markaas Bulkid uu dambiile ka dhigo, Saayina uu dambiile ka dhigo. Anaga Isaay aan isku dhacno, Saay inaan guriga ka eriyin qofkaas ayaa ka dambeeyo. Qofkaasna waa anaga qof naga mid ah ayuu dhahayaa. Intaas markuu dhahay kadib muuqaalka xiga waxaana la tusayaa ninkii qoyskii ama deegaankii ay ku nooleed Saay ayaana la geeyay. Markii xaggana la geeyay kadib waxaana la tusayaa deegaankii oo Saay la hadlayaan. Waxay dhahayaan sidan kuma aamusnaan karno, waa inaan wacnaa Firaad oo markaas wax walba weydiinaa intana ugu yarnaa si uu halkan u imaado. Dadka deegaanka waxay ka go'aan inay Firaad u yeeraan oo ay dhahaan kaalay xaaskaada halkan ka wado. Laakiinse waxay celinayso Saay. Waxay leedahay ma doonayo ninkaas inaad u wacdaan uu halkan imaado, inaad qasabtaan ma rabi. Markii hore idinka igu qasbay isagoo i rabin inuu i guursado ayaad qasab igu guuriseen. Isagana iguma faraxsano, inaan la noolaadana ma jeclo, isagana ima jeclo, anna ma rabo. Waxba ha u yeerina, ninkaas jecel iima hayo. Inaan agjooggiisana kuma faraxsano, inaan isaga la joogo gurigiisa ku noolaado kuma faraxsano. Qoyskiisa ima rabaan. Sidaas aan isagana ugu kala dhamaatay. Usha Moosha ayaa hadlaysa waxay leedahay waan ogahay Firaad inuu jecel yahay Saay, laakiin Saay midaas ma fahansano. Saay waxay leedahay barnaamijkaas hadeer inaan ka hadlo ma rabi. Noloshayda inaan horay usii wato ayaan doonayaa. Ninkii Firaad ahay sharaxaadii ayuu wada qoyskiisii ayuu la hadlayaa. Wuxuu dhahayaa waxaan tagay xafiiskii jaamacadda. Waxaan qabtay ninka Finaayig lagu magacaabo. Runta ayaan ka sheegsiiyay. Wuxuu i tusay dokumentiyadii iyo waraaqadihii. Sidaas ayaan ku ogaaday wax walba. Wuxuu i dhahay qoyskaada qof ka mid ah ama qof ayaa lacag i siiyay. Isagoo qofkaas ma garanaynin. Waxaan dhahay qofkaas magaciisa ii sheeg. Wuxuu i dhahay magaciisa ma garanayo. Markaas ayuu sawirkii i tusay. Haddaba ma garanaysaan sawirkuu i tusay? Cid kale tama ahan, waa adeerkii Omkar. Adeerkii Omkar ayaa lacag siiyay ninkaasi. Misana ku dhahay bedel magaca xaaska Bulkid ee Sangeeta Deshpande ka dhig ayuu yiri. Dadkii oo dhan way naxayaan markay xaqiiqadaas ka ogaadaan afka Firaad. Xalqadana halkaas ayay ku dhamaanaysaa. Firaad oo ka shifay sirtii weyneyd oo ahayd inuu Omkar waxaan oo dhan ka dambeeyay. Dadkii oo dhan way wada naxeen. Hadeer Omkar inuu waxaas ka dambeeyay qaar ka mid ah wayba ogaayeen, sida Firaad aabihiis iyo Bafani oo kaleeto. Baaqi maxay samayn doontaa? Sidee markaasi hadeer isugu dayi doontaa inay markaasi Firaad ka hor istaagto inuu raali gareeyo Saay gurigana ku soo celiyo. Haddaba xalqadda 171 halkaasay ku dhamaanaysaa. Waxaan idiin raacinaynaa goosgooska laga soo bandhigay xalqadda 172 ee beri la daawanayo. Goosgooska waxaana lagu tusayaa Ashwani oo calaacalayso kana murugaysan maqnaanshaha Saay. Waxay dhahaysaa Saay way baxday, nolosheena way ka tagtay, meel ay aadi ma ogi, xaalkeedu waxay ku sugan tahayna ma ogi. Waxaa macquula tuuladii inay u noqotay. Waan xumaynay Saay iyo hadallo noocaas ay daldalaysaa. Firaad ayaa u ballan qaadaya hooyadiisa. Wuxuu dhahay waxba ka walwalin, aniga ayaa Saay raali gareynayo, waana soo celinayaa. Waxaan wacad ku maray inaan Saay soo celiyo, aan keligii soo noqonin. Ninkii Firaad ahay wuu soo baxayaa, gaarigiisii ayuu soo qaatay. Si toos ah tuuladii Saay ee degneyd ayuu soo aadayaa. Gabadhii Saay ahayd oo habeenkaasi gurigii tuulada ay ka degneyd joogto ayaana la tusayaa iyadoo sariirteedii sii fuulayso. Waxay soo xasuusanaysaa muuqaaladii wacnaa ee Firaad la wadaagaysay, gaar ahaan markii u dabaaldegayeen feestada Holi, markuu wejigii rinjiga u marinayay. Sidoo kaleetana marada garbasaarta oo kaleeta ay labadoodii hoosta ka galayeen, waana xilli uu shumin rabay ama dhoonkar rabay. Muuqaalkaas ayay soo xasuusanaysaa. Haddaba way jeceshahay Firaad iyada, laakiinse markay soo xasuusato haddana dhibka u geystay ayay muuqaalkii isdiidsiinaysaa. Hurdo ayay iska raadinaysaa, way seexan rabtaa. Goosgooska intaas ayaana lagu tusayaa. Xalqadda beri aan aragna marka waxa dhici doono.
filaad maraha la gareyn doonaa saayinama aqbali doontaa waan ogaanaynaa insha allah. wabilahi towfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.